fitamiinada iyo macdanta ayaa door muhiim ah ka ciyaara taageeridda howlaha kala duwan ee jirkeena oo ay ku jiraan horumarinta unugyada cusub sida kuwa ku jira follicle-ka timaha. Haddii aadan haysan fitamiinada lagama maarmaanka u ah koritaanka timaha caafimaadka leh, waxaad ogaan kartaa in timahaagu ay qalalaan, jilicsan yihiin. Dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay xataa dareemaan xoogaa timo daadasho ah. Joogtaynta cunto dheelitiran iyo kor u qaadidda qaadashada fitamiinada iyo macdanta kala duwan ee muhiimka ah ayaa furo u ah kor u qaadidda korriinka timaha. Si kastaba ha ahaatee, la'aanta fitamiinada waxay si xun u saameyn kartaa koritaanka timaha, waxayna keentaa timo daadasho xaalado dhif ah. Caadiyan, timaha daataan waxaa keeni kara ama keeno hidde-sideyaasha, hormoonada, xaaladaha caafimaad iyo daawooyinka qaarkood. Haddii aad wax walaac ah ka qabtid, waxaa fiican in aad la hadasho dhakhtarka. Laakiin haddii aad rabto in aad kordhiso dhererka timahaaga, dhalaalkooda iyo xooggooda, fitamiinadani aad bay ku caawin karaan. Haddii aad doonaysid ka bogasho wacan. Nooca koowaad, biotin. Noocyada qaarkood ee fitamiin P ayaa la rumaysan yahay in ay saameeyaan koritaanka timaha, sababtoo ah waxay ka caawin kartaa in ay oksijiinta u qaado unugyada madaxa, waxayna kicisaa follicleska. Follicleska waxaa la lahaa waa meesha jiridda ee tinta ka soo baxdo, godkaas yar oo calaamadda aan saaray. Fitamiin B7 oo sidoo kale loo yaqaano biotin ayaa si gaar ah faa'iido ugu leh caafimaadka timaha. Biotin oo ah fitamiin si dabiici ah ugu soo baxo jirka ayaa door muhiim ah ka ciyaaro inuu cuntada u bedelo tamar. Nafaqadan lagama maarmaanka ah ayaa la aaminsan yahay in ay xoojiso caafimaadka timaha, sababtoo ah yaraanteedu ama in la waayo oo jirka ay ku yaraato waxay keeni kartaa timo daadasho. Si loo hubiyo qaadashada kugu filan ee biotin, waxaa ku dari kartaa cuntadaada nuts, ukun, digir, hilib iyo qudaar cagaaran oo caleen leh. Si kastaba ha ahaatee, xaddiga xad-dhaafka ah ee biotin ee jirka ayaa kicin karo saameyn daran sida finanka maqaarka, arrimaha dheefshiidka iyo waxyeelada suurtagalka ah ee kelyaha. Midda labaad, borotiin. Timuhu waxay si buuxda ugu samaysan yihiin borotiin. Marka kordhinta qaadashada borotiinka waxay kor u qaadi kartaa koritaanka timaha. Daraasaduhu waxay muujinayaan qaybta borotiinka ee timaha oo loo yaqaano keratin waxay muhiim u tahay soo saarista timaha caadiga ah ee caafimaadka qabo. Cunista amino acid waxay ka caawin kartaa soo saarista keratinka. Cuntooyinka ay ku jiraan amino acidska ee muhiimka ah waxaa ka mid ah hilibka lo'da, digaaga, kalluunka, ukunta, jiiska iyo broccoli. Midda saddexaad, fitamiin A. Waxa uu awood u leeyahay in uu ka shaqeeyo mucjisooyinka timaha ka maqan. Maaha oo kaliya in uu leeyahay awood oo ku kiciyo koritaanka unugyada, laakiin sidoo kale waxa uu leeyahay awood oo ku dhiirigeliyo daloolada madaxa si ay u soo saaraan saliid badan. Soo saarka saliidda ee kordhay ayaa si wax ku ool ah u qoyn karta timaha, siinaysana iftiin qurux badan. Sirtu waxay ku jirtaa soo saarista sebum, waana walax dufan leh oo door muhiim ah ka ciyaaro ilaalinta caafimaadka timahaaga iyo madaxaaga. Ilaha cuntada ee hodanka ku ah fitamiin A waxaa ka mid ah ukunta, baradhada, karootada iyo qudaarta cagaaran oo caleenta leh. Midka afraad, zinc. Waxay u adeegtaa ujeedooyin kala duwan oo jirka ah sida caawinta koritaanka unugyada iyo nidaaminta qanjirada saliidda ee madaxa. Iyadoo hubinayso soo saarista sebum ama saliid ku filan, waxay ka caawinaysaa in ay timahaaga iyo madaxaaga qoyaan. Ku darista cuntadaada spinachka, digirta iyo iniinaha ama miraha bocorka waa habka fiican oo aad ku kordhin karto qaadashada zinc. Midka shanaad, fitamiin E. Nafaqada kale oo loo aqoonsaday in ay taageerto cusboonaysiinta unugyada waa fitamiin E. Waxay ka caawisaa soo celinta unugyada gaar ahaan madaxa. Fitamiin E waxaa kale oo uu ka caawin karaa ama kaaga gargaari karaa arrimaha madaxa sida cuncunka. Waxaad ku kordhin kartaa qaadashada fitamiin E adiga oo ku darayo cuntadaada yicib badan, avokadada iyo miraha gabaldayaha. Midka lixaad, birta ama iron. Birtu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa howlaha kala duwan ee jirka, taasoo ka dhigayso macdan lagama maarmaan ah. Mid ka mid ah howlaheeda muhiimka ah waa ka caawinta unugyada dhiiggaas oo loo yaqaano RBC ee u qaadista oksijiinada unugyada kale oo ay ku jiraan xididada timaha ama jiridda timaha. Si loo hubiyo nuugista birta ee ugu fiican, isku day in aad isticmaasho cuntooyin badan oo qani ku ah macdantan. Qaadashada birta ee aan kugu filnayn waxay keeni kartaa daal, dhiig yaraan iyo xaalado daran. Waxaa jira cuntooyin badan oo qani ku ah birta oo aad ku dari karto cuntadaada sida ukunta, looska, iniinaha ama miraha, bariiska bunniga ah, digirta, spinachka iyo khudrad la qalajiyay. Waxaa halkaas inoogu eg ciwaankeena maanta. Waxaa inoo balan ciwaanka xiga hadduu alla idmo. Khayr badan.